بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال والد دمانتين waxaan ku guda jirnay casharaantan ku qaadan jirnay hikada luqada carabiga. waxaan maraynaa guntii iyo gabagabadii qawaacida aynu ku qaadan jirnay hikada luqada carabiga. waxaan ka hadli doonaa maanta haddii Allah wada ogolaado alwaqfu ala aakhir alkalima, marka lagu istaagayo kelmadda iyo qaabka loogu istaago kelmadda carabeed. ugu horeyn laba ayaynu kala qaadanaa kelmaddaasi lagu istaagayo: an yakuna alxarfu alladii yuqafu calayhi mutaxarrikan, kelmadda xarafka u dambeeya lagu istaagaya inuu yahay xaraf xarakaysan. isla qaybtaasi labaynu usii kala qaadanaa xarafkaas xarakaysan lagu istaagayo. alwaqfu cala alxarfi almutaxarrik gayri taa'i almarbuuta, xarafkaas xarakaysan inuu taa almarbuuta yahay, taa gaabta aynu soo qaadanay iyo inaanu ahayn. marka aanu ahayn baan soo qadimayaa. taa almarbuuta hadduuna ahayn uu xarakaysan yahayna, sida tusaalaha hadda kuu muuqdoo kale, nuunkaas u dambeeya kordhigan uu xarakaysan yahay oo dee wakaa xarakada kordhiga wata. waayahay taa ulmarbuudana maaha, de waa nuun oo wakaa kuu muuqda. maxaa la yeelaya haddaba xaaladaas? haddii kelmadda xarafka u dambeeya u xarakaysmo, xarakadaasina ay taa ulmarbuuta ahayn, hana dhaahdo xarafkaasina una taa ulmarbuuta ahayn, ama ta gaabta wixii loo yaqaana una ahayn, waxaa la samaynayaa sida loogu istaagayo in xarakada meesha laga tuuro, reebninna loo bedelo. bes warku waa inta. hadda halkan waxaa ku taalla alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. akhriskeega yacni inaynu qaacidadii ku kicino oon kala jarjarno waqtiguma bixinayo. waxaan doonayaa halkan u dambaysa inaan ku sharxo sida loogu istaagayo. waayo qawaaciddii oo dhan waad iga haysaa, adiga akhrisan doona insha allah. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa aayadda u horeysa suurat alfaatixa, ama aayadda labaad haddii bisinka aynu tirino. haddaba nuun baa u dambeeya kordhiga. nuunkaas markaad doonaysa inaad ku istaagto rabbi alcaalamiina wayana wuu kordhigan yahay, kordhiga un ka tuur. deedna waxay noqonaysaa ya-dii reebnayda la jiidayey iyo nuunkanoo reeban ayaa la isku qabanaya. rabbi alcaalamiin waan reebay nuunki, caalamiin waka way kordhignaa. marka hadduu hoos dhigmo waa la mid, oo tusaaluhu waa kan. hadduu hoos dhigmo isla aayadda kusii xigta arraxmaani arraxiimi wuu hoos dhigay miimkaas. markaynu doonayna inaynu ku istaagno xarakadaa hoos dhigamanu ka tuuraynaa, xaraf reeban baa ka soo qaadana. arraxmaani arraxiim waxaan soo qaadanaya iyadoo xarakadu ay godaal tahay. aayadda kusii xigta ta kale kusii xigta suurat alfaatixa maan soo qaadanaya. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciinu wuu godan yahay. kadib waxaa loogu istaagayaa godaalka laga tuuraya, nastaciin baa loogu istaagaya. nastaciin gebi saddexdan aayadoodba yani waxa weeyaan reebnin baa lagu wada istaagaya. ama ha kor dhignaado, ama ha hoos dhignaado, ama ha godnaado. xarafku hadduu hal xarako keliyaba u watay, yani xarakadaasaa laga tuuraya, waxaana loogu istaagayaa reebnin. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiimi maaliki yowmi ddiin. waxaan uga tegay hoos dhignayd iyadoo oo arraxmaan arraxiim baa naga deeqay. maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. waa laga wada tuuraya godaalka. laakiin haddii la doono in la xidhiiriyo, dee xarakadana usoo noqonaysa oo nuunkaas kor dhigan ayaynu ra'daa kusoo dhufanayna haddaynu doono inaan xidhiirino. sababtoo ah hamsatul wasli waa laga tegaya, waayo dhexday dhacan. laamtana waa laga tegaya, dee laamtu waa shamsiyo. marka nuunka iyo ra'daasaas kusoo dhufan waxaan odhan doonaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yowmi ddiini iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim. waayo ihdinaa bay hayd, waa kaynu kusoo tusaalna hamsatul wasligii. hamsatul wasligana waa la tuurayaa, nuunkan gudanaya hada lagu dhufanaya. nastaciin ihdina asiraata. dadka qaarkood baa akhriya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciina ihdina asiraata. khalad wey, nastaciina wax ka jira ma jiraan, uu godan yahay sheekh. midda kale ihdinaa mar haddii la xidhiiriyo hamsatul wasligii lama akhriya, waxaan soo qaadanayada nuunkii hada la isku dhufanaya. nastaciin ihdina asiraata waa haddaad xidhiirinayso. haddaad istaagaysa miyaa waxba xarakada ka gur, reebnin ugu wada istaag. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin arraxmaani arraxiim maaliki yowmi ddiin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ihdina asiraata almustaqiim. eeg mustaqiima weyaan iyadna moogta. ihdina asiraata almustaqiim gebigooda sidaa way. halkaa waxaan kaga gudbaynaa xarafka yani lagu istaagaya hadduu xarakaysan yahay, isla markaana waxa weeyaan xarakadiisu noocay doon ha noqoto, kordhig, hoosdhig iyo godaal, reebnin baa loogu istaagay. xarafkaas waxaanu nidhi yaanu ahaanin ta marbuuta ama ta gaab iyaanu noqonin.
haddii uu ta gaab noqdo alwaqfu calaa xarfin aakhiruhu taa-un marbuuta waxaan ku istaagaynaa xaraf waxaan doonayaa kelmad aakhirkeedu uu yahay calaa kalimatin baa halkaa ku fiicnayd kelmad aakhirkeedu yahay taa-ul marbuuta ayaanu ku istaagayna waayahay sida tusaalahan kaaga muuqata alqaaricatu wey waa ta godan markaynu istaagayno alqaaricatu looguma istaagayo sidoo kale sidii iminka aynu tilmaamaynana xarakadu intaa la tuuro ta'dan lama reebayo oo lama odhanayo alqaaricat lama odhanayo maxaa la samaynaya ta'daba haa baa loo bedelay ma arkaysa horta qaabka haadayna u qoran tahay ilaan haadu waa qaabkan oo dhibcaha laga daayay uni markay aakhirka kelmadda dhacdo marka waxa ta'dii furnayd sideeda loogu qori waayey qaabkan haada loogu qoray baa waxay tahayba goorta la istaagaya ha loogu istaagaa marka caynkan kor dhigan ee ka horeeya unbaad ka soo qaadaysaa si waxaad ha ku reebtay markaad istaagayso alqaaricah okay laakiin haddaad xidhiirinaysa de waa ta'deedii oo xarakadii godaalkan iska wadato alqaaricatu malqaaricatu wamaa adraaka malqaaricah okay too dambaysaad ku istaagtay waa ha baad u bedelaysa way markaa way noo godan tahay hadday kor dhigantana waa la mid waa kan aljannata ayaa la guri ku istaag maxaad odhan aljannah okay ha baa lagu istaagay ha reeban way hoos dhiguna waa la mid walmalaa'ikati bay ahayd ku istaag baa lagu yiri walmalaa'ikah okay walmalaa'ikah okay ha godnaato ha kor dhignaato hoos dhignaato xarakadii dooni ha wadatee ta gaab xarakaysan haddaad ku istaagto waxaad ugu istaagaysaa ha reeban ayaad ugu istaagaysaa way xarafka xarakaystaan intaasaan kaga baxayna haddii uu yahay xarafka xarakaysan waxaan ta gaab ahayn reebnin baa loogu istaagaya xarakadun baa laga tuuraya hadduu ta gaab yahayna ha reeban baa loo bedelay qaybtaa xarafka lagu istaagaya xarakaysan iyo halkaa igaga waxaan u gudbaynaa xarafkan lagu istaagaya hadduu yahay xaraf saakin oo reeban xaraf saakin hadduu yahayna labaynu usii kala qaadan saddexan idhaahdo ayaanu kala qaadan waxaan lagu istaagayaa inuu yahay saakin asliya saakin asala waxaynu ka wadnaa saakin aan xarfumad ahayn ila xarfumadku waa reebnaay saakin sidoo kale aan tanwiin ahayn laakiin waxa weeyaan xarf asala ah oo markiisa horeba iska reebnaa hadduu xataa kelmadda yani dhexda hadduu xataa dhaco iska reebnaaba dee marka la istaagana reebninkumaa lagu istaagaya waayo waxa la raadinaya reebnin ahaaba warkiina helnayba waa meel aan maxay odhan jiray meel aan rabay roobi igu daawe calayhim waa dii la xidhiiriyo himtaa un bay ahayd haddaynu ku istaagno halkaa intuu naqaska kugu qabtaad ku istaagto غير المغضوب عليهم أما الحديدنا ما نستاجنه ربنين أصل وسكوتي بس ولا يستاجيه ربنين كم بلوجي يستاجيه وحكى الله ما صمينه وهي وحلا مدا حرف اللينك كأنه أورنجلي وحرف متكي لكن شروط دي متكي وهي صلاحان وهو حرف مد نقول جلو اللي جري مركو جدالك كوري صو مركز نقولي يأجلس صدق عليه مركز صدق كوري صين نقول جري لكن هذه أي كوريان حرف متكي يعني waxa weeyaan kordhigu ka horeey lama jiri jirin saw ay noqon jirtay watawaasaw dano kale hadii aad xiriirinayso ilaa wax xarf iska reebanay xarfu mid maaha ilaa mar hadii kordhi ka hormaray reebnin kan buu iska watay salahan marka aad leedahay suurat al-asr oo kale illa alladhina aamanu wa 'amilus salihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr fiiri imka dad ku istaagtana salahan naqas kaaga istaago وتواصوا صدام بدو استاغس وتواصوا وحرف سكر ربنا واي حرف ربنا هدي لو استاغنا سيدي سير ربنا بما لو دينيا هدي لو استاغو حروف متك الوقف على الحروف الماديه حروف متك هدي لو استاغنا سيدودين با لو استاغيا imka halkan ihdina waxa weeyaan noon ka yar aliftaas in ku jidi jirnay ihdina ti xarf midku inoo reeban yahay bas alla ba fududeey way ihdina ba loo istaagay way sidoo kale waa yu'tu xarf midkin ba wawi waa lamid wayahdi xarf midkin ba waa lamid ihdina wayu'tu wayahdi way xarf mid ba hadaad aragto sidiisun ba loo istaagay wax dhaw ma jiraan waayo wax xarf raban weeyaan waxa la raadinayeen waa in kelmadda in la reebo xarakada laga daayo arabta xarakadu ma istaagto waxaan u gudbaynaa alwaqf ala alxarf almunawwan xarafka yani waxa weeyaan tanwiinta ay saaran tahay sida loogu istaagay ka waxa weeyaan labaynu kala qaadana inuu yahay alwaqf ala almunawwan almadmum walmaksur in tanwiinta lagu istaagay tahay tanwiin laba godaala ama laba hoos dhig waxaan dib u dhiganaynaa tanwiinta laba kor dhig ah haday laba godantaa sidaan oo kale ghafuurun rahiimun rahiimta dambe lagu istaagayaan doonay waxa la sameeynaya maadaama laba godaal tahay
reebnin baa loogu istaagaya bes sidii aynu samaynaynay yani xarakada kelideed markay tahay oo kale sidii aynu samaynaynay reebnin oonan u bedelaynay sidoo kale baa loogu istaagaya raxiimun raxiim baa laodhan mar haddii laba godaal tahay ghafuurun raxiim bes hadduu laba hoos dhigayana waa la mid cadaabin aliimin baa ahayd waxaa loogu istaagayaa cadaabin aliim bes aliim sukuunun baa loo bedelaya waay waxaan ku idhi tanwiintu hadday tahay laba godaal sida raxiimun oo kale ama ay tahay laba hoos dhig sida aliimin oo kale waxaa loogu istaagaya reebnin raxiim aliim laakiin hadday tahay laba kordhig hadday tahay labaynu u kala qaadayna alwaqfu cala almunawan almaftuux yani waxa weeyaan tanwiinta laba kordhiga labaynu u kala qaadayna waxaasi lagu istaagaye tanwiinta laba kordhiga ay saaran tahay inuu yahay taa ulmarbuuda iyo inaanu ahayn hadduu taa ulmarbuuda yahay haa baa loogu istaagayaa sidii markay xarakadu kelideed tahayba haada loogu istaagay xataa halkaas hadday laba godaal tahay ama ay laba hoos dhig tahay xataa yani waxa weeyaan taa ulmarbuuda dee reebnin baa loogu istaagaya haa laakiin goorta ishkaalku yar iman karaa waxay tahay goorta ay laba kordhig qaadato laba kordhig markay qaadato haadin baa yadna loogu istaagaya raadiyatan mardiyatan bahed mardiyah waxaa loogu istaagayan hadeedii markaa taa ulmarbuudayada waxaad kaga bogsanaysaa ama xaraka keliya ha saarnaato xarakadaasi kordhig ha noqoto hoos dhig ha noqoto godaal ha noqoto yani waxa weeyaan miday doona ha noqoto ama maahine tanwiini ha saarnaato laba kordhig laba hoos dhig laba godaal waxoo dhan ba ha reeban ugu istaag waay haddii laakiin xarafka laba kordhig uu saaran yahay uu yahay waxaan taa ulmarbuuda ahayn sida aayaddan oo kale tawaaban tan oo kale waa ba waxaan taa ulmarbuuda maaha bes alif baa loo bedelaya marka reebnin looguma istaagayo tawaaba lama odhanaye alif baa loo bedelaya imikaanad ogaatay aliftan yaree ka dambaysa danta laga lahaa meesha loo dhigay waxaan ku odhan jiray markaynu tanwiinta soo maraynay aliftan yaree laba kordhiga la daba dhigay yani waxa weeyaan dib baad ka ogaan doonta halkanaan kula sugay halkan ayaynu doonayna inaan ku qaada dhigna arrintaas marka waxa weeye xarafkan lagu istaagayo tanwiinta wataa hadduu laba godaal yahay ama laba hoos dhig yahay reebninun baa loogu istaagaa marka alif lama daba dhigayda marka la qoraya laakiin hadduu laba kordhig yahay alif baa loogu istaagaa yani alif reeban oo dee xarfimad bay noqonaysaa mar haddii alif reeban kordhig ka hormaranay leen tawaaba baa la odhan kala yarjiide ilaa xarfimad mar haddii alif reeban hadduu kordhig ka hormar maxay noqon jirta xarfimad bay noqon jirta innahu kaana tawaaban waa tanwiintii markaad istaagaysa maxaad odhan haddaba innahu kaana tawaaba waka waay war cashirku intaas ayuu ku idil yahay haddii aan muraajiciyo waxaan ku uri kelmadda lagu istaagayo waxaanu u kala qaadaynaa inay tahay xarafkaa lagu istaagaya xaraf xarakaysan iyo meena mid reeban hadduu xarakaysan yahay waxaanu si kala qaadaynaa taa ulmarbuuda inuu yahay iyo inaanu ahayn hadduu taa ulmarbuuda yahay haa-un baa loogu istaagayaa reeban oo ta'diiba meesha waa laga bedelayaa hadda ta'da yani waxa weeyaan iyadu furan waxa weeyaan ta'da maftuuxada ama ta'da ta dheertaan u naqaano iyada caadi ta'deedaa loogu istaagaya waa la reebaya laakiin taa ulmarbuuda ka hadlayna ta'da gaaban haa reeban baa iyada loogu istaagaya hadduuna ahayn xarafkaa reebani taa ulmarbuuda hadduuna ahaynna xarakada saaran baa laga qaadayaa oo reebnin baa loo bedelay kordhig hoos dhig godaal waxay doonaa noqoto way xarafkii lagu istaagay hadduu iska reebma ka war reebninkaasi inuu asal yahay iyo inaanu ahayn baan u kala qaadana asal hadduu yahay xarfuliinkiina uu ku jiraa watawaasaw oo kale dee bes reebninka noo watay unbaa baan ugu istaagaynaaba hadduu xarfumad yahayna sidii xarfumadku marka la xidhiirinayaba waa unbaa lagu istaagaya ihdinaa wayu'tuu wayahdii iyo wixii la halmaado hadduu tanwiinsan yahay ama laba shaqal wato waxaan u kala qaadanaa tanwiintu inay tahay laba godaal iyo laba hoos dhig iyo mayane laba kordhig inay tahay hadday laba godaal iyo laba hoos dhig tahay reebnin baa loogu istaagaya hadday mayane laba kordhig tahayna waxaa loo kala eegayaa inay tahay taa ulmarbuuda iyo inaan ahayn taa ulmarbuuda hadday tahay sidii marka horeba ay ahayd unbaa waxa weeyaan ha reeban loogu istaagaya hadduuna ahaynna alif baa loo bedelaya tawaaba raxiima ghafuura caliiman xakiima iyo wixii la halmaado waaye marka waxaa yani waxa weeyaan culaysku ku yara jiraa taa ulmarbuuda inaad ka warhayso iyo munawanka xarafka tanwiinsan inaad ka warhayso marka taa ulmarbuuda iyo munawanka haddaan si gaar kugu muraajiciyo waxa weye taa ulmarbuudadu ama xaraka keliya ha sideeto xarakadaasi kordhig godaal hoos dhig waxay doona ha noqoto ama tanwiin ha sideeto laba kordhig laba hoos dhig laba godaal intoo dhanba ha reeban ugu istaag waa war fudud wey tanwiinta miyaa u kala qaaduun inay tahay maxay yani waxa weeyaan hoos dhig iyo laba godaal laba hoos dhig iyo laba godaal iyo inay meel laba kordhig tahay hadday laba hoos dhig iyo laba godaal tahay reebnin ugu istaag hadday laba kordhig tahayna oo dee taa ulmarbuuda laba kordhig inayna ahayn taa ulmarbuudadii waa annaga ha un baa lagu istaagayaa nidhi
يعني waxa weeyaan oo kalimaadka kale ay tahayna xarafka laba kordhiga alif in loo bedelo ayaa loogu istaagay kelmadda carabiga lagu istaagana halkaas ayay naga dhantahay halka waxa inoogu dhab duruusta aynu ku qaadan jirnay higaada luqada carabiga casharkan ka dambeeya waxaan ku khatimi doonaa kitaabka quraanka kariimka saddex suuradood oo hooseysa inaynu bal qawaacid ku dabaqno hadii Allah wada loo kala way waxaan u gudbinaa tadriibaat الثلاث ama leelisada saddexda waxaan oran jirnay qaybta koobaad waxay noqonaysaa tusaalayaashan ayaa soo bandhigay mid walba waxa ku jirta ama ku bilaabmaya hamsatul wasli iyo laamti shamsiyada ahayd xarafka ka dambeeyana dabcan waa u shidan yahay wada qaranaysaa wax kale ma qabanaysid way xabada u horeyso kala hadaynu tusaalihii qawaacidi hadii aan ku xasuusiyo waxay noqonaysaa baynu niri laamta waa la tuuraya oo waxa lagu dhex idgaamaya xarafka ka dambeeya shidan bal dhex gelinaya hamsatul wasligana maadaama hadda bilowgii hadalka ay taalo waa la aqrinaya had iyo jeerna waa la kordhigaya marka kordhiga ay hamzadu wadato iyo taada la isku dhufanaya ad ta wayahay alif reeban baa ka sii dambaysa ad ta jimka god ju isku dar ad ta ju inta kalena adiga ayaa la daba galay wayahay tadriibka qaybta labaad waxay noqonaysaa akmil kama fi almithaal sida tusaalaha u dhamaystir almithaal tusaale wuxuu ku oranayaa hadda halkan waxa ku yaala saqarun oo kale ayaa ku yaala waxaanu u geenaynaa ama aan ku daraynaa al oo dabcan de xagga hore ka galaysa ashaasina waa shamsiyadii maadaama saadku kamid ah xuruufta shamsiyada kadibna waxay noqotay as-saqaru laamti waa la qariyay waayo xarafka ka dambeeya ayaa shidan oo inoo tilmaamaya inuu xuruuftan ka tirsan yahay xuruuftii shamsiyada waayahay tusaalayaal ayaan haddaba keenayaa dhammaantood waxaad u galaysaa sidaa uu tusaaluhu yahay ayaad u galaysaa qaybahan kalena mid walba al ayaad ku daraysaa kadibna akhrigeega saxiixa ah oo aynaad laamta ku dhex qariso ka dambe oo aad shado ayaad had iyo jeer aad adeegsanaysaa tadriibka qaybta labaadna sidaas ayuu noqonaya tadriibka qaybta saddexaad wuxuu noqonayaa qayb aynu ku khatimi jirnay darsi kasta oo ahayd uktub maa yumla calayka qor waxa lagu yeedhinayo bidariiqatin cashwaa'iya qaab isku dhex daadsan oo kalimaadkii aynu qaadanay kolba tii la doona lagu soo qabanaya adiguna ku tirtirsanaysaa waa haddii casharka si fiican aad u fahanteeyey waayahay qaybta labaadna waxay noqonaysaa bidariiqatin murattaba qaab tartiibsan baa lagu yeedhinaya oo kalimaadkii aynu qaadanay tii u horreysay ilaa tii u dambeysay tartiib ayaa lagugu yeedhinaya adiguna si wanaagsan ayaad u qoraysaa waa haddaad casharka si fiican u fahanteeyey haddii kalena darsiga ayaad ku ceeshan doontaa insha allah waxaa rajeynaya inaad fahmi doonto waxaanu odhan jirnay haddii aad weydo cid sidan kuu caawisa waxaad ku kaaftoomi doontaa labada qaybood hore ee muraajacada wayna ku anfici doonaan waxaan rajeynaya darsigana kooda faa'iidaysateen gaarsiiya cid kastoo isleedin waa anfacaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh